habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa caasimada TV qodobada wararkeena waxaa kamid ah dagaal culus oo caawa ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo xaalad kacsanaan ah oo ka jirta magaaladaasi wararkii ugu dambeeyay xaaladda Beledweyne ayaan idin hayaa talaalkii COVID-19 ee lagu talagalay Soomaaliya oo la geeyay dalka Kenya maxay tahay sababta Kenya loo geeyay talaalkaasi xogo faahfaahsan ayaan idinkaga hayaa Turkiga oo diyaarado dagaal siinaya dawladda Soomaaliya iyadoo cunaqabateyn dhanka hubka ah ay saaran tahay Soomaaliya beesha caalamka oo arin aan la filaynin ka dhex wada madaxda Soomaalida xilli James Iswan iyo Donald Yamamoto ay la wareegeen awoodii madaxna Farmaajo warbixin ku saabsan ayaan idin hayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo soo saaray baaq degdeg ah muxuu baaqaasi ku saabsan yahay waan idin hayaa iyo caalamka oo aan idin hayo dalka Imaaraadka Carabta oo maanta ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu u diiday in habadeeda uu dulmaro qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararka caawa halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya fadlan daawade si aad u hesho wararka degdega ah subscribe saar Fagaare Production si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararkan halkan ku soo gudbino sidoo kale laagta iyo share-kana hanaga hilmaamina warkii oo faahfaahsan waxaan ku bilaabayaa warkeena xiisad xoogan ayaa caawa ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan gaar ahaan dhinaca xiga garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi halkaas oo ay ku dagaalameen laba ciidamo military ah ayaa caawa weeraray bar control oo ciidamada booliska Hirshabeelle ay ku leeyihiin afaafka hore ee magaalada gaar ahaan dhanka xiga garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif bartaasi control ayaa ah mid ay ciidamada booliska ku qaadaan canshuurta goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada la weeraray ay iska difaaceen isla markaana dagaal xoog leh uu ka dhacay halkaasi waxaana weli goobta isku hor fadhiya ciidamadii dagaalamay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ujeedka ciidanka weerarka qaaday iyo qaybta ay ka tirsan yihiin wararka qaar ayaa sheegaya in ciidanka militariga ee weeraray booliska ku sugnaa bartaasi control ay ka gadoosan yihiin mushaar la'aan haysata isla markaana ay doonayaan inay la wareegaan goobtaasi lagu qaado canshuurta weli waxaad daawanaysaan wararka Fagaare Production waxaan idinkugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya markana talaalka COVID-19 ee lagu talagalay Soomaaliya ayaa maanta la geeyay dalka Kenya iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka loogu deeqay talaalka COVID-19 ee kamid ah mashruuca COVAX oo ah mashruuc ay sameysay hay'adda caafimaadka adduunka WHO isbahaysiga talaalka Gavi iyo hay'ad kale oo lagu magacaabo isbahaysiga diyaargarowga cudurrada faafa dalalka Afrika ayaa inta badan helay talaalkan oo dal kasta la siinayo 20% dadka dalkaasi ku nool waxaana dalalka uu soo gaaray talaalkaasi kamid ah Djibouti, Ethiopia iyo Kenya oo toddobaadkii hore heshay ilaa 1 milyan oo goojo oo talaalka ah talaalkan oo ah nooca Oxford AstraZeneca ayaa lagu sameeyay dalka Hindiya waxaana wasiirka arrimaha dibadda dalka Hindiya uu shaaciyay 3 bishan Maarso in talaalkii Soomaaliya laga qaaday dalka Hindiya kuna sii jeedo Soomaaliya balse waxa la geeyay dalka Kenya waxaa Soomaaliya loogu deeqay 300,000 goojo oo ah qaybtii ugu horeysay ee talaalka ay sugaysay Soomaaliya oo gaaraya 1 milyan iyo 2,000 wuxuuna talaalkan gaaray magaalada Nairobi 6 bishan Maarso haddii Soomaaliya ay wada hesho 1.2 milyan ee talaalka waxay taasi ku filan tahay 20% dadka Soomaalida ah wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abiykar Nuur ayaa sheegtay in talaalka loo geeyay dalka Kenya arrimo dhinaca farsamada ah ama logisticska iyadoo ay maamulayaan hay'adaha UNICEF iyo WHO ee qaramada midoobay oo xarumahooda waaweyn ay ku yaalaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya talaalka ayaa ugu dambeyn la filayaa inuu Muqdisho soo gaaro saacadaha soo socda iyadoo wararku ay sheegayaan in diyaar garow la'aan iyo qorshe xumo ay qayb ka tahay sababta talaalka Soomaaliya loo geeyay dalka Kenya ma cadda sida loo qaybin doono talaalka Soomaaliya ay heshay laakiin wasiir Fawziya ayaa sheegaysa in la diiwaan geliyay shaqaalaha caafimaadka laguna bilaabi doono iyaga dawladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka taageeraysa helida diyaarado dagaal markii ugu horeysay ayayna taasi dhici doontaa wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya qorshahan oo sida uu ku suurtageli doono weli aan la ogeyn maadaama cunaqabateyn ay saaran tahay Soomaaliya ayaa waxaa haddana jira in Turkiga uu aad galaangal ugu dhex yeeshay Soomaaliya 10 sano ee la soo dhaafay isla markaana Turkiga uu ka mid yahay dalalka muslimka ah ee taageerada siyaasada Soomaaliya arrintan ayaa soo shacbaxday kadib markii la helay sawiro ku aadan diyaaradaha dagaalka ee droniska oo la barayo sida loo duuliyo saraakiil Soomaali ah xogo aan helayno ayaa sheegaya in saraakiishan Soomaalida ah ay qaateen
tababar muddo bila ah socday haddana uu u soo dhammaaday. Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn dhanka hubka ah, wayna adkaan doontaa in diyaaradahaasi dagaalka la keeno Soomaaliya. Marka la eego isku milanka awoodeed ee federaalka u horseeday Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay ku xadgudub dastuur in la sameeyo. Madaxda maamul goboleedyada ayaa isku arkay inay yihiin madaxweyne qaran oo kale, isla markaana ay qaataan doorkii laga rabay hogaamiyaha Soomaaliya. Inkastoo hadda madaxweyne Farmaajo waqti xileedkiisa uu dhammaaday, haddana waxaa la rumaysan yahay in weli go'aano uu leeyahay caalamkan ay isaga la shaqaynayaan ilaa madaxweyne laga soo dooranayo. Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa 2 cisho ka hor soo gaaray Muqdisho, isla markaana waxa uu la kulmay musharaxiinta madaxweyne ee mucaaradka, safiirada reer galbeedka badankooda iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dhexe sida Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare. Waxa ugu badan uu kala hadlayay ayaa ahayd xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka, oo daraska doorashada la filayo iyo xaalka waxa uu la muuqdo. Jubbaland waa state ama maamul goboleed ka mid ah dawladda dhexe, balse ma aysan qaadan doorkii laga rabay, iyadoo dhowr jeer ka hor timid awaamiir iyo baaqiyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u soo jeediyey. Waxaa la mid ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo isna ku soo wajahan Muqdisho, isagana waxa uu yahay taaka kale oo doorashada Soomaaliya hortaagan. Go'aanada uu qaatana waa kuwa ay isku mid ka yihiin Axmed Madoobe oo fiiladooda siyaasadeed isku xiran tahay. Isku milanka awoodaha federaalka iyo dawladda dhexe ayaa Soomaaliya dhigay meel sare oo la kala garan waayo cidda awoodda ugu sareysa iska leh. Beesha caalamkana waxay noqdeen kula kaala jira oo midba markii ay la joogaan ayay u sacbiyaan kaliya. Soomaaliya muxuu u taray nidaamka federaalka oo aan ka ahayn qabyaalad iyo qabiilada inay noqdaan kuwa reer ahaan iyo gobol ahaan isku taageera? Su'aashaasi daawade aragtidaada hoos nagula wadaag. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa soo saaray baaqiyo degdeg ah oo uu kaga hadlayo xaaladaha adag ee ka jira gobolka Gedo iyo sidoo kale tan ka dhalatay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Sheekh Shariif ayaa marka hore ugu baaqay ganacsatada, dawladda iyo hay'adaha samafalka inay gurmad bini'aadanimo ay gaarsiiyaan shacabka ku dhibaataysan Gedo. sidoo kale wuxuu soo jeediyay in meel sare looga soo wada jeesto la dagaalanka cudurka COVID-19 oo haatan faraba'an ku haya Soomaaliya. Shariifka ayaa sidoo kale dawladda ka dalbaday inay fududeyso sidii loo heli lahaa wax kasta oo laga hortagi karo cudurka safmarka ee COVID-19. Baaqa Sheekh Shariif ka soo baxay ayaa u qornaa ugu horeen waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan, xukuumadda Soomaaliya, saaxiibada Soomaaliya ee caalamka iyo hay'adaha samafalka inay kaalmo degdeg ah la gaaraan masiibada bini'aadanimo ee ka jirta gobolka Gedo ee Jubbaland iyo guud ahaan gobolada kale ee dalka ee laga soo sheegayo masiibooyinka dhibaatooyinka isbiirsaday oo ay ka mid yihiin biyo la'aan, abaaro iyo caabuqa COVID-19 ayaa dhibaato xoogan ku haya bulshadeena. sidaa darteeda waxaan ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan gurmadka, kaalin muuqatana ay ku yeeshaan keenista dalka ee talaalka COVID-19 maadaama awoodda dawladda ay kooban tahay. ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa wasaaradaha ay qusayso ee xukuumadda inay ganacsatada u fududeeyaan sidii ay dalka u keeni lahaayeen wax kasta oo looga hortagi karo cudurka COVID-19 sida talaalka iyo adeegyada kale ee daawo ee loo kaashan karo la tacaalidda xanuunkan oo Soomaaliya faraba'an ku haya. weli wararka fagaara ayaa daawanaysaan markana caalamka. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa dib u dhigay booqasho taariikhi ah oo la filayay inuu ku tago dalka isu tagay Imaaraadka Carabta kadib markii uu culays ka yimid hanaankii qorsheynta duulimaadkiisa ee hawada Urdun. Benjamin Netanyahu ayaa lagu waday inuu Dubai u duulo maanta oo Khamiis ah si uu halkaasi kulan ugula soo yeesho dhaxal sugaha boqortooyada Imaaraadka Sheekh Mohammed bin Zayed. hase yeeshee xafiiskiisa ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalka Urdun ay daahiyeen fasaxii la doonayay in ay hawadooda uga ogolaadaan muddo dhowr saacadood. arrintan ayaa timid hal maalin kadib markii lagu soo waramay in dhaxal sugaha boqortooyada Urdun uu joojiyay safar uu damacsanaa inuu ku tago magaalada Qudus. talaabadaasi ayaa daba socotay muran soo kala dhexgalay Israa'iil iyo Urdun. Amiir Hussein bin Abdullah ayaa qorsheynayay inuu booqdo masaajidka Al-Aqsa, halkaasi oo ah meel ay dadka muslimiinta ah sharfan kuwa Yahuudda ahna ay macbad ahaan u aaminsan yihiin. talaabadan Amiir Urdun iyo Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil mid walba looga baajiyay safarka ayaa ka dhigan khilaaf diblomaasiyadeed oo labada dal soo kala dhexgalay sida warku ay sheegayaan. waanageynta warkii aad ka daawanayseen Caasimada TV waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena. inta ku kulmi doono warkan kiisa xiga nabadgelyo.